السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عن دلهانتي بداود يا الملك الصوت جوكتان كنا سو دوادا وركي رويل oo inay kaga soo tabiyay stuudiyihiisa magaalada London. madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Puntland Janal Cadde Muuse oo dhawaan dib ugu soo laabtay dalka ayaa jawaab culus ka bixiyay eedeymihi dhawaan ugu soo jeediyay madaxweynaha talada haya ee maamul goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Faroole kaas oo ku saabsanaa in Janal Cadde Muuse uu qayb ka yahay qalaasta iyo dagaalada xilligan ka soconaya qayb ka mid ah Puntland. warbixin arrinkaasi ku saabsan Yaxye Nuur Muumin ayaa inoo haya. madaxweynihii hore ee Puntland Janal Cadde Muuse ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar. shirkan ayaa waxa uu ku saabsanaa jawaab celin hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha Puntland ee haatan talada haya Cabdiraxmaan Faroole, asigoona madaxweyne Faroole ku eedeeyay inuu ka dambeeyay dagaalkii ka dhacay magaalada Qardho iyo meelo kale. waxaana uu beeniyay madaxweynihii hore ee Puntland Janal Cadde Muuse dhamaanba eedeymahaasi asigoona ku tilmaamay wax kama jiraan. bismillaahir rahmaanir rahiim. Canada waxaan uga imi qayladaan iga timi dhammaan bulshada Puntland gudaha iyo qurba joogta si loo badbaadiyo Puntland. waxaan hormuud ka ahaa heshiisiintii nabadda ee colaadda lagu soo afjarayay. Cabdiraxmaan wuxuu ka mid ahaa xubnihii ugu firfircoonaa oo dagaalka iyo colaadda oogayay ilaa ay gaartay inuusan ka qayb gelin shirarayaashii badnaa oo dib u heshiisiinta aanu sameynaynay uu asagu bannaanka ka jiray. nabadda beelaha muddadii aan xilka hayay waxaan ka shaqayn jiray heshiisiinta iyo nabadgelyada beelaha ee colaaddu dhex taal, waxaana laga gaari jiray guul iyadoo aan marar badan ku bixin jirnay hanti badan si ay beeluhu u heshiiyaan. ilaalinta shuruuca maamulka aan mas'uulka ka ahaa wuxuu ilaalin jiray dastuurka iyo qawaaniinta, wuxuuna wax kasta ka horreysiin jiray danaha caamka ah iyo maslaxadda reer Puntland iyadoo ay marnaba dhicin in awood shacbiga lagu muquuliyo. mashaariicdii arrimaha bulshada maamulka aan hogaaminayay wuxuu lahaa hab abuur iyo fikrado horumarineed, waxaana markii ugu horreysay oo laga howlgalay arrimaha bulshada gaar ahaan waxbarashada, caafimaadka iyo biyaha iyo iyadoo maaliyad badan lagu bixin jiray. Janal Cadde Muuse ayaa shirkiisan jaraa'id saxaafadda ku weydiisay su'aalo ku aadan eedeymaha loo soo jeediyay iyo shirka isimada ee lagu wado inuu ka dhaco magaalada Qardho iyo waxa laga filayo. wax ka jira ma jiraan. shicibka Puntland iyo dadkoo dhan waa ogyihiin inaanan ahayn anigu nin fidmo wale ah, laakiin 7 bilood ayaan Cabdiraxmaan iyo dawladdiisa la shaqaynayay si ay nabadgelyo iyo ay wada hadal u furaan shicbiga Puntland iyo mucaaradka inay isu keenaan. intaas waa ka calwaayay. mar kastaba wixii lagu heshiiyo habeenkii baa laga soo saari jiray. waxaan u leeyahay aniga iga sheegayo waxaan intaan nabadgelyada ka shaqeeyay waddanka Puntland waa la ogyahay. ha ahaato beelaha isu dhaweyntiisa anigu weligay beelaha hub isuma dhiibin, burcad badeed kama shaqayn. mudane madaxweyne, shirka isimada Puntland ee lagu qaban doono magaalada Qardho bisha 8-20keeda maxay ummadda iyo shacabweynaha reer Puntland ay ka filayaan? waxay ka filayaan Puntland maanta ma jirto. Puntland waa baabaasan tahay, waa kala go'an tahay, abni ma jiro. meel reer kastaba wixiisu samaystaa inay isu soo celiyaan oo meel isu keenaan sharcigii iyo waxyaalihii ay weligood ku dhaqmi jireen la soo celiyo ay wada u jeexaan shicibka. shicibweynaha Puntland waxaan ugu baaqayaa, waad u jeedaan Puntland way kala tagtay. sidii la isugu keeni lahaa oo ay sumcaddii Soomaaliya ay ku lahayd
inay soo ceshato. yaxya nuur muumin telefishinka caalamiga ah royal magaalada Qardho.